dhammaantoodna si wanaagsan ayay imtixaanka u soo gabagabeeyeen una soo dhameeyeen. Hargeysa oo u dhiganta 60% student population-ka dalka nabadgelyo ku soo wada xirooday deere iska daayo diqsi ma herdiin sawir idla gal waaba soo bixi kar weyn yani farxad siday runtii ardaydu u faraxsaneed cid ka soo gacan ka geysatay inuu imtixaanku sidaa inoogu qabsoomo degan oo ay ka mid tahay ardaydii imtixaanka u fadhiisatay iyo waalidiintoodii labaduba oo runtii iyaga laftoodu qayb weyn ka ahaa inay nagala qayb qaataan ka shaqaynta ardayda. maanta 26 tahayna waxay noo soo dhamaaday dugsiyadii sare ee dalka. waxaan horta idinku bishaareynayaa Soomaaliland oo dhan ugu bishaareynayaa in habay yaraatay imtixaankaasi waxay oran jirtay Soomaalidu deero ayna deere herdiin meel walba imtixaanku nabad ku tagay nabadna kaga soo dhaqaaqay imika riboodyadii ugu dambeeyay gobolada dhan waa la wada hadalay nabad bay ku soo wada dhaqaaqeen waa la soo wada bixi dariiqay ku soo jiraan ilaahay waxa uga baryaynaa in nabadgelyo inagu soo gaaraan. Hargeysa oo u dhiganta 60% student population-ka dalka nabadgelyo ku soo wada xirooday deere iska daayo diqsi ma herdiin si nabadgelyo oo caafimaad qabto ku soo dhamaaday. wasiir wax kale oo kula socodsiin inkastoo adiga iyo agaasimaha iyo wasiir dawladda xoogaal ahaydeen waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa ciidanka booliiska runtii oon oran karno la'aantood imtixaankaasi qabiyo ahaan laha oo runtii si yani qarannimo ka muuqato oo dhammaantood kaliya hayna mar walba sidaa uga qayb qaadanayay ayaan runtii ma taqaaniin u mahadnaqayaa. waxa kale oo wasiir sheegaya inay sanadkan markaan eegno siday wax u dhici jireen saxaafaddu badalooga sanadkii hore oo kale waxaan islahayn wartalo maxaa la sheegi oo inay wax dad ku dhintaan baanu ka warwarinay sababtoo ahayd sibay wax u kaceen wax kiciyaba shaydaaluljin iyo shaydaalinsi wax kiciyaba sanadkii dhawaato cabsi baa nagashay awligeed degelin sanadkana runtii farxad baa nagashay aan tii sanadkii hore naga maydhay annaga iyo ardayda iyo waalidka iyo wasaaradda runtii oo intaanu soo marinay aniga wasiirku wada soconay agaasimaha guud iyo wasiir dawladuna kormeer dibadaha ay ku maqnaayeen intiiba waxa weeye sanadkan runtii ardaydeena iyagoo qoslaya waxaanu jaanis ka weynay sawir idla gal waaba soo bixi kar weyn yani farxad siday runtii ardaydu u faraxsaneed annaguna waan la faraxsanahay waxaan u rajaynaa guul marka waxaan jecelahay aniga kulli daalkuna way ugu yar badnaa buuquna way yar badnaa waxaan jecelahay inaan ku wareejiyo malaaydu ku maagdhige adeer cawska inuu iga dayo garkayga saan u dhiga hadaa TikTok dhigaysaan qaar baa cawsiga sawir ta kale awooyo hadaa dance ma ciyaarin dance bay soo anigoo sale marka waxyaalaha waxaan sir ardayda ma xasin malaha waa qolada ma taqaanaa adigu waa qolo bahalkana waxaan oran lahaa hadaad wax dhigaysaan si wanaagsan u gudbiya waxaan runtii jecelahay inaan agaasimaha guud ku wareejiyo agaasimaha guud fadlan ku soo dhawow. sida la sheegay wasaaraddu laga soo bilaabo 3 bilood oo dambeeyay waxay runtii hawl adag ugu jirtay diyaar garowga imtixaanaadka qaranka asbuucii u dambeeyay waxay kaba bira u xidhatay sidii imtixaanka qaranku ugu qabsoomi lahaa si nabad qaba una gaari lahaa goobii loogu talagalay si nabad qaba isla markaana isku qaybisay inuu kuur gasho habsami u socodka imtixaanaadka qaranka oo gobolada dalka oo dhana iyo badqabka ardayga laftiisa oo muhiimad isaguna inoo lahaa labadu way saarnaan labadu waa la ilaalinayay wasaaraddu xilkaas ay qaadatay ciidanka amniga ilaalinaya bilayska qaranka oo runtii iyaguna kaalin weyn ka qaatay sidii la sheegay anu markhaatinaan ka maadaama gobolada bariga ka yimid inay si xushmad leh oo xilkasnimo ku jirto la shaqeynayeen goobaha amnigana si fiican u sugayeen. waxaan kaloo mahad celinayaa cid kastoo gacan ka geysatay inuu imtixaanku sidaa inoogu qabsoomo degan oo ay ka mid tahay ardaydii imtixaanka u fadhiisatay iyo waalidiintoodii labaduba oo runtii iyaga laftoodu qayb weyn ka ahaa inay nagala qayb qaataan ka shaqaynta ardayda iyo deganaanshahooga. waalidku waa maalinta ugu walwalka badan yahay maanta oo kale iskuulada horteeda waxaan ugu tagnay waalidiin fara badan oo ku sugay ardaydoodii iyagoo ka taxadiraya inaanay ardaydaasi rabshad samayn ee markuu ardaygu ka soo baxo galaaska uu gacanta qabsado taana aad baan uga mahad celinaynaa. waxaan ku soo afmeerayaa anoo ku wareejinay wasiirka waxbarashada barbaarinta sayniska oo kelmadiisa ka odhan doono afmeerka ah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
ardada Somaliland ee dugsiyada sare imtixaanka gashay waxa weeyaan 16,013 oo ka galay dhammaan gobolada dalka oo dhan ardadaasi waxay isugu jireen ardayda baahiyaha gaarka ah ayaa ku jiray waxa ku jiray ardada kale dhammaantoodna si wanaagsan ayay imtixaanka u soo gabagabeeyeen una soo dhameeyeen waxaan ilaahay uga baryayaa in ilaahay ku geeliyo imtixaanka mustaqbal wanaagsanna ayaan ilaahay u weydiinayaa dhammaantoodba xukuumadda wadajir iyo waxqabad waxaa ka go'an inay tayayso waxbarashada gaar ahaan manhajta su'aalahaas oo soo noqday waxaan jeclahay inaan ku balbalaariyo in manhajkii uu ku socdo dib u habeyn iyo dib qiimeyn dib loogu samaynayo sida awgeed ardadii ama waalidiintii ka hadlaysay manhajka waxaan u sheegayaa lana socodsiinayaa inaanu hawsha ku jirno hawshiina wadno dhawaana insha Allah manhajka tageyntiisa iyo qiimeyntiisa wixii laga cabanayna aan insha Allah dhameystiri doono waxaan ku soo koobayaa hadalkayga waxa weeyaan inaan u mahad celiyo cid kasta oo ay boolisku oo runtii la'aantood aan waxba noo suurta galeen ay hogaaminayeen iyo dhammaan cid kasta oo nagala qayb qaadatay oo aanan xusin iyagana aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa oo hawshan la waday waxaan leeyahay dhammaan ardada Somaliland guulaysta meel joogtaanba waxa weeyaan waxbarashadu ma dhabaato mana istaagto waxaan idin rajaynaynaa guul iyo gobonimo ilaahay inuu idin guuleeyo fi aakhiraba mustaqbal khayr qabana waa ilaahay baan idinka baryaynaa imtixaanada aad gasheen ilaahay idinku gooriyaan ilaahay idinka baryaynaa khayr baan idin rajaynaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh